inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allah u naxariistee waxa habeenimada xalay magaalada Laascaanood ku geeriyooday marxuum Sheekh Axmed Cabdinaasir oo ahaa imaamkii masjidka Al-Huda ee magaalada Laascaanood. waxaana marxuumka saaka subaxnimada hore lagu aasay qubuuraha magaalada Laascaanood aaska kadib culimaawidiinta gobolka Sool iyo isduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Sool Cabdilaahi Maxamuud Axmed oo kulan degdeg isugu yimid ayaa tacsi tiiraanyada u diray qoyskii qaraabadii asxaabtii iyo shaweynta gobolka Sool ee uu ka baxay marxuum Sheekh Axmed Cabdinaasir iyaguna Alle uga bariyay inuu naxariistii janno ka waraabiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan halkan tacsi uga dirayaa anigoo ah isduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Sool ee dhammaan bulshada ku dhaqan gobolka Sool. waxaan si gaar ah tacsi ugu dirayaa culimada gobolka Sool oo uu ka tirsanaa qaariga Sheekh Axmed Cabdinaasir. waxaan kaloo si gaar ah ugu dirayaa tacsi bahda مسجد الهدى أما dadkii uu tujin jiray. waxaan kaloo taxsi gaar u dirayaa familigiisa ee reer Yaasin Xaroor gaar ahaan awowgay Yaasin Xaroor iyo adeerkay Cabdinaasir Yaasin Xaroor. waxaan leeyahay Ilaahay samiriyay imaan haynaga siiyo dhammaanteen buu inaga dhintay iyo hooyadiiba. waxaan leenahay dhammaanteen buu inaga dhintay. wuxuu ahaa Axmed Cabdinaasir nin dabeecad wanaagsan, wuxuu ahaa nin dulqaad badan leh, nin bulshada dhexdeeda sumcad ku leh, wuxuu ahaa sheekh iyo qaari yaqaana qiraa'aadka dhammaantiis iyo quraanka culuumtiisa. wuxuu ahaa macallin ka mid ah barayaasha quraanka ee gobolka Sool ee kuwa kaalmaha koowaad kaga jira. sidoo kale wuxuu ahaa macallin iskool oo islaamiga dhiga. waxaan leenahay dhammaan dadkii uu ka geeriyooday gaar ahaan dalladii waxbarashada ee uu ka tirsanaa ee Ilays dugsiga sare ee Ilays si gaaraan iyagana ugu sii tacsiyeynaya. waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto qabrigiisana ha u waasiciyo. dadka ahlul qur'aankaayi waxaa loo baahan yahay in la weyneeyo. ahlullaahi wa khaasatuhu weeye, waa dadkii Ilaahay weeye. wuxuu ahaa qaari Soomaaliyeed buu ahaa. waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto. Sheekh Jaamac uu sheegay waxaan taasi tiiraanya leh oo runaantii qulubteeda gilgishay oo ruuxday la wadaagaynaa dhammaan dadka muslimiinta meelay joogaanba. geeridii naxdinta lahayd ee adduunka gilgishay ee xalay ku timi Sheekh Al-Qaari Sheekh Axmed Cabdinaasir Yaasiin Warsame. markoowaad isaga Ilaahay waxaan uga baryanaa Rabbi subxaanahu wa tacaala inuu naxariisto nin khayr iyo diin ku barbaaray oo lagu yaqaano oo markaa diinta ka shaqaynteeda iyo faafinteeda iyo quraanka iyo wanaagga ka dhex muuqday buu ahaa. Ilaahay waxaan uga baryanaa inuu noqdo toddobadii carshiga Ilaahay maalinta qiyaamaha harsanayay oo dhowr meelood uu ka soo geli karo xadiiska haddaan fiiriyo. رجل معلق قلبه بالمساجد وكمد هاي وإمامك مساجدك شاب نشأ في عبادة الله وكمد هاي ولير دليرها بربارة الدين لا يكون بربارة بها وإن خير فربنا من يسوته منا إلى أن الظن جاينا وقاضوا وراتيه الله رب سبحانه وتعالى ونحرستهم مال الدون كانوا جوا عن إلهي ونجيان وقبرنا تتك مسلمين تعدمانتون تعصيبا نودرنا وقتصيرنا كارهان فاملكي يقويسكي ددكي وقرابدي وقدنت وحالنا يستبري ما واسعة. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. waxaan halkan tacsi tiiraanya leh uga diraynaa eheladii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee geerida ku timi walaalkeen Sheekh Axmed Cabdinaasir. waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto, dembigiisa Rabbi subxaanahu wa tacaala ha dhaafo, qabriga Ilaahay ha u nuuriyo,
beerbeeraha jannada ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala ha uga yeelo. waxaan si gaara ugu tacsiinayaa ehelkii iyo familigii uu ka baxay. annaga oo ka ima ahaan uu naga tirsanaana si gaara baan tacsi ugu dirayaa. ugu dambeyn waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaan halkan tacsi tiiraanyo leh, murugo leh, dareen walaalnimo leh uga dirayaa anigoo ku hadlaya dhammaan afkii ardaydii ka baxday maxadka Al-Furqaan, walaalkayo Sheekh Axmed Cabdinaasir Yaasiin Warsame oo xalay toole ku geeriyooday magaalada Laascaanood oo ahaa imaamkii weynaa masjidka Al-Huda. waxaan alla weydiinayaa marxuumka in alla subxaanahu watacaala jannadii uu geeyo, in alla dembigiisa uu dhaafo, in alla subxaanahu watacaala siduu adduunyada noogu kulmiyey in alle jannada uu noogu kulmiyo. waxaan tacsi u dirayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo culimmadii iyo ducaadii uu ka geeriyooday. alla subxaanahu watacaala dhammaanteen samir iyo iimaan allah inaga siiyo. الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. halkan waxaan tacsi uga dirayaa Axmed Cabdinaasir oo xalay ku geeriyooday magaalada Laascaanood. Sheekh Axmed Cabdinaasir imaamkii masjidka Huda. anigoo ku hadlaya afka macallimiinta magaalada Laascaanood waanu tacsi u diraynaa. ilaahay waxaynu ka baryaynaa naxariistii janno inuu ka waraabiyo. qofka macallinka waa aabe, waa murabbi, ummadan iyo dadban wax soo baray. waxaan ka codsanayaa dhammaan ardadii iyo dadkii wax soo baray Axmed Cabdinaasir ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariistee inay faatixada iyo ducada ay u soo maraan, qabrigana ilaahay subxaanahu watacaala inuu u nuuriyo loo soo maro. daliil bay inoo tahayo shalay waxba inoo dhigayay, uu ina tujinayay, maanta wuu inaga hooseeyaa. qof kasta inuu geerida u diyaar garoobo iyo safarkaas lagu jiro iyo wadadaas ayaynu isfaraynaa oo ilaahay subxaanahu watacaala laga cabsado. geeridu waa waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa ku tusaysa, waayo ilaahay qofka dhintay kaama jecla. ilaahay subxaanahu watacaala ehelkii iyo qaraabadii samir iyo iimaan allaha ka siiyo, iyo dhammaan ducaadda iyo ardadii ay wax isla soo barteen iyo mucallimiintii ay wax isla dhigi jireen iyo dhammaan guud ahaanba gobolka oo dhan. عالمين. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. halkan waxaan tacsi uga diranaa walaalkeen Sheekh Axmed Cabdinaasir Yaasiin oo ku geeriyooday xalay 1 bishii Shacbaan 1442 oo ku beegan 14 bishii 3 2021. dhammaan ehelkiisii iyo asxaabtiisii in alla subxaanahu watacaala uu sabir iyo iimaan uu ka siiyo. waxa weeyaan alla subxaanahu watacaala uu hoygiisa jannatul firdaws la ala ka yeelayeen alla subxaanahu watacaala weydiinana.